daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad Rufar Media wararkii ugu dambeeyay warbixintii dhinaca diblomaasiyadda waa 8 Abriil waa 2020 waa maalmo Arbaca oo markale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysiyo daawada qiimaha leh iyadoo cadaadiska xooggan ee uu sii wado madaxweynaha dalka Mareykanka kaasoo uu la dul joogo dalka Saudi Arabia oo ku saabsan in uu ka waabto ama dib uga kala jireeyo ayaa la yiri go'aankiisa ku saabsan ku dhawaaqista dagaalka saliidda ama shidaalka caalamka ayaa haddana waxa soo baxaya inay u muuqato in marka la eego dhaqaalaha oo daras lagu sameeyay dhaqaalaha liicay ee dalalka Ruushka iyo Sacuudiga ee iyagu isku dagaalay suuqyada dhinaca saliidda in Sacuudigu uu ku jabay arintaasi dhaqaalayahanada markaasi maxadka daraasaadka dhinaca ganacsiga ee reer Yurub ee ESCP ayaa waxa ay sheegeen in marka la eego labada dal ku tiirsanaantooda dhinaca dhaqaalaha uu Ruushku kaga guuleystay Saudi Arabia maadaama Ruushka dhaqaalihiisu kaliya uusan ku tiirsanayn saliid Russia waxay ku tiirsan tahay ayaa la yiri iibinta hubka teknolojiyada kale iyo sidoo kale in ay leedahay ayaa la yiri ganacsiga kale ka mid tahay saliidda dabiiciga gaaska dabiiciga oo markaasi gaaska markaasi iyadu tan lagu shito raashinka oo kale iyo waxa la yiri sidoo kale inay gaashaandhiggu u yahay meesha labaad ee dhaqaalaha ka samayso Saudi Arabia waa dal weyn laakiin waa dal kaliya oo leh baa la yiri wax dhaqaala ama wax il dhaqaala oo muuqata baa la yiri saliidda iyo xajka saliidda waxa soo raaca markaasi cimrada iyo xajka la tago oo ay malaayiin ruux oo muslimiina booqdaan kuwaas oo lacagaha laga qaado ama ha noqoto kan laga qaado airportka ama fiiga waxa loo yaqaan fiisaha ama lacagta fiisaha ama se waxa la dadka tagaya lacagta iyo dhaqaalaha ay ka helaan dadka ay markaasi gudaha ku dhaqan marka qofku gudaha galo maadaama uu hudheel seexanayo meel wax ka cunayo dhaqaalaha ay dadku soo galiyaan dibadda ka yimid labada ilood iloodna way xilantay midna ayaga xidhay midna waxa xidhay xanuunka faafaha daran ee markaasi caalamiga ee dad marka waxaana la yiri sida daraadeed waxa muuqatay in daraska la sameeyay dhinaca dhaqaalaha uu u muuqdo ayaa la yiri Sacuudiga looga tutronaaday sida uu aaminsan yahay Maxameduh Salaama oo maxadkaasi madax ka sidoo kalena iskuulka la yiraahdo Europe Business School qaybtiisa dhinaca tabarta ka ah professor waxa uu leeyahay sida aynu fahansanahay Sacuudigu waa uu haystaa shidaal aad iyo aad u badan laakiin waxaad ogaataan in shidaalka aadka u badan uu yahay ishiisa kaliya ee wax ka soo galaan Sacuudiga oo dal aad u weyn waxa lagu dhaliilaa in aysan sameeynin haba yaraatee in ay baaweeyaan dhaqaalahooda iyo inay waxyaalo kala galiyaan aragtida 2030 uu u bixiyay Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz ayaa dad badan ku tilmaameen in ay tahay aragtida kaliya ee Sacuudiga ka soo saari karta halka uu taagan yahay oo ah inuu saliidda kaliya ku tiirsanaado ayadoo dunida laga yaabo ayaa la yiri in saliidda laga baxaba ama gabi ahaanba markaasi ay noqoto ku mid laga gudbo ayadoo taasi haatan la aaminsan yahay inay Sacuudiga dibdhac aad u weyn ka haysato dhinaca horumarka kale Russia waaxdeeda dhinaca tabarta Russia National Energy Security Fund la yiraahdo ayaa dhawaan waxa ay sheegtay in hadii xataa saliiddu ay gaadho $10 foostadii in dawladda dalkaasi ay noqon doonto mid iyadu ka badbaada maadaama ay haysato ilo kale ay ku gambato ayaa lagu yiri wartooqa oo ay dhawaan soo saartay wasaaradda maaliyadda iyo tabarta ee dalkaasi Russia halkaad nagala socotaan waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo daawasha qiimaha leh dunida oo dhanna ayadoo ay shafka u garaacaan dalalka isku magacaabay laanta golaha ammaanka ama UN Security Council isku magacaabay oo 5 xubnood ay markaasi ugu turturoon yihiin 10 xubnood oo la doorta oo wareegta ay ag joogan ayaa waxa haatan ay sheegayaan in shir qulqul ah oo albaabada la isugu dhufo doono ay ka yeelan doonaan arinta kaasoo la sheegay in haba yaraatee aan waxba ka soo naasacadaadeen inkasta oo shirka ay soo ducduuceen qaar kamid ah dalalka oo kamid ah dalalka Jarmalka iyo Mareykanka oo iyagu dalbaday in shir noocaas oo kale la isugu yimaado ayaa haddana waxa dhammaan daraska ka soo baxaya iyo kaaladaha wararka oo dhan ay sheegayaan in shirku uu noqon doono mid aan waxba tarin isla markaana waxba soo kordhin maadaama dalalkan aysan waxba ku soo kordhin wax badan aysan ka qabanin dhibaatada markaasi masiibada ah ee xanuunkan markaasi faafaha daran ee dunida aafeenaya ayaa waxaa la sheegay in dalalka arinta dalbaday ama aad ugu adadka uu kamid yahay dalka Jarmalka iyo 8 dal oo kale sida uu sheegay safiirka dalkaasi la yiraahdo Dominican Republic oo asagu ah haatan ka madaxtinimada golaha ammaanka qaramada midoobay haya hase yeeshee waxaa la sheegay dalka Shiinaha inuu ka shakisan yahay kulanka la soo dhadhoobayo kaasoo sababi kara ama ay ka baqsan tahay dawladda dalkaasi Beijing in ayaga farta lagu soo fiiqo maadaama ay jirto tuhun ah in dalka Shiinaha xanuunkan uu dunida u qariyay hay'adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch madaxda guud Louis Chapnot ayaa wuxuu ku tilmaamay hadur
kulan kasta oo yeeshaan golaha ammaanka qaramada midoobay wuxuuna ku tilmaamay inay ku fadeexdoobeen caalamka maadaama aysan soo saarin wax dhaqaala iyo wax qaraar oo ay xanuunkaasi kaga hortagayaan tan iyo intii xanuunkaasi uu adduunka qabsaday muddo haatan ku dhow baa leeyahay 5 bilood waxaana haatan uu sheegayaa in arrintan ay tahay mid gabad fal ay ku geysteen dunida isla markaana ay isku cuno duubeen taladii dunida balse aysan xoolo la soo banbixin madaxa guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa goor isagu sheegay in loolankan dunida haysta uu yahay mid la mid ah ama ka daran ama kii ugu adkaa tan iyo intii laga soo faraxashay dagaalkii labaad ee dunida wuxuuna sidoo kale sheegay inuu ka niyad jabay wuxuu ku sifeeyay ficil la'aanta ay qaadayaan golaha ammaanka qaramada midoobay oo uu sheegay in sida muuqata haba yaraatee aysan ka qabanin arrimahaasi halkaad nagala socotaan daawadayaal waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan iyadoo aad sidoo kalena la socotaan in adduunka uu isdiidan yahay dhibaatooyin xooggan ay iska jiraan ayaa madaxweynaha Mareykanka oo la aaminsan yahay inuu ka mid yahay dadka dhinaca u janjeera cunsuriyadda iyo islaam nacaybka lagu eedeeyo ayaa waxa uu magacaabay horta xogihiisii arrimaha warfaafinta afraad intii uu taladan hayay muddada 3 sano iyo dhowrka bilood madaxweynaha dalka Mareykanka naagtan uu u magacaabay taladan oo leedo Kayleigh McEnany ayaa waxaa lagu ay caan ku tahay nacaybka muslimiinta waxayna dhowr jeer ka soo muuqatay shirar lagu aflagaadeynaya dadka muslimiinta ah iyo sidoo kale goobo kale oo dhamaantood aad iyo aad loogu maagayo dadka muslimiinta kaasoo ay soo qaban qaabiyeen ururada islaam nacaybka u madax maray iyo dadka soo galootiga iyo sidoo kale in iyada xitaa lafteedu ay gacanteeda u qaadatay inay muslimiinta daadifayso haatan waxaa la xasuustaa haweeneydan hadeerto Kayleigh McEnany lagu magacaabo oo noqotay wasiirkii afraad ee warfaafinta ee aqalka cad in iyadoo fadhida sanadkii 2014 oo ka hadlaysay barnaamijka loo yaqaan Fox News and Business ayaa waxaa dhinac fadhiyay ninka markaasi kakan ee isagu leeyahay Gavin Magnus leeyahay ururka dhaqdhaqaaqa dadka cadaanka ee isugu yeera Proud Boys ayaa waxa ay dhool cadaysay aad u qosashay kadib markii uu sheegay in dadka muslimiinta asal ahaan ama wasiirtoodii hore ay xumeed wuxuu yiri waa dad markaasi ay wuxuu yiri firkoodu uu xun yahay oo fir ahaan wuxuu yiri waa dad aan lahayn ayuu yiri aqliyad ama meesha ka soo unkameen aan lahayn sidoo kale waa dad aan waaqic ahayn ayuu yiri gabi ahaanba dad waaqic ka maran oo aan wixii waaqic ku xisaabtamin ayuu yiri isagoo ku sifeeyay in marka la eego ayuu dhalashada dadkaas ama asalka dadka ama dheecaanka dadkaasi asalka DNA-dooda ay ku jirto ayuu yiri firxumo aad ayay u qosashay isla markaana waxay ka mid ahayd dadkii fadhiyay panelka ama meesha markaasi ayada lafteedu waxa ay sidoo kale waa 31 jir gabadhan jaamacadda Harvard ayay ku baratay sharciga 2016 ayaa waxay noqotay afayeenka madaxweyne Trump ee ololihiisii doorashada waxaana ay sidoo kale qortay maqaal ay ku qortay bartiga Twitter-ka oo ay soo gelisay iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka waqtigaas Obama ku eedeysay in uu iska dhagatirayo inuu ku tilmaamay muslimka ama inuu iska dhagatirayo ayay tiri in muslimiintu ay yihiin dad khatar badan isagoo ku tilmaamay diinta islaamka bay tiri inay tahay diin dulqaad ayuu ku tilmaamay bay tiri waxay ku eedeynaysaa Obama balse ay tahay diin xasuuq ayay tiri bal fiiri bay tiri sida ay u laayeen masiixiyiintii bay tiri dalka Ciraaq ku dhaqanaa 80% koway ka dhigeen bay tiri markaas iyadoo markaasi qoraysa maqaalkaasi sanadkii 2016 sidoo kalena daadifaysay dadka muslimiinta sidoo kale waxay ku tilmaantay in madaxweynihii dalka Mareykanka hore Bush loo jiray George W. Bush weeraray dalalka Afghanistan iyo Ciraaq in uu xoreeyay dad muslimiin oo ka badan bay tiri ama ku dhaweeyay 150 milyan taasoo uu ka xoreeyay diktaatooriyiin muslimiin oo dhiigga ku falaxsha haatanse Trump ayaa waxa la sheegay inay tan cadayn u tahay mar kale sida uu u doonayo ayaa leeyahay inuu muslimiinta u muujiyo cadaawad gaar ahaan kuwa Mareykanka ururka muslimiinta u dooda ee la yiraahdo CAIR waa hay'adda xiriirka Mareykanka iyo Islaamka madaxda guud Robert McCawi ayaa waxa uu sheegay in sida muuqata madaxweynaha Mareykanka uu mar kale muujinayo in uu necab yahay muslimiinta isla markaana uu marka ka dameysa qofka ugu xun yahay uu talada aqalka cad wax ka siinayo la yaami maayo ayuu yiri in uu taladan ka soo dhex muuqato gabadhan buuri kakan necab muslimiinta
waxaanse aad iyo aad ula yaabaya ayuu yidhi xishood la-aanta ayuu yidhi Trump ee marba uu keenayo qofku ka necab yahay dadka muslimiinta. waan u sheegnay ayuu yidhi dhowr jeer adduunka oo dhan iyo dalalka oo dhan iyo wuxuu yidhi hay-adaha Mareykanka oo dhan iyo warbaahintaba in Trump waxa uu sameynayaa ay tahay wax iska cad ayuu yidhi isagoo markaasi ku hadlayay afka the Council on American Islamic Relations ururka la yiraahdo CARE loo soo gaabiyo. halkan nagala socotaan waa wararkii oo cala dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal wacalo iyo warbixino kala duwan ayaan idin hayaa daawashana qiimaha leh iyo waliba xogo kala duwan aan haatan fiirino magaalada Wuhan loo jiray. magaalada Wuhan ayaa waxa ayadana haatan laga qaaday daboolka isla markaana albaabka laga furo. magaaladani waa magaaladii xudunta u ahayd ama asalka barti ugu horeysay lagu arko xanuunkan loo yaqaano faafaha daran ee markaasi sida weyn dunida u aafeeyay ee dad marka noqday marxuu marka hore ka soo bilowday inuu noqdo magaalo mar kadibna dalmar kadibna duni mar iyo dalmar ayuu ku dameeyay adduunka dhan bucagta mariyay. magaaladii markaasi asalka u ahayd ee Wuhan 76 maalmood kadib oo qafil ku jabsanaa ayaa dawladda dalkaasi waxay ku dhawaaqday inay sii deysay kadib markii goor hore ay sheegtay in hal qof uusan ku dhiman Shiinaha maalmihii u dameeyay iyadoo taas ay ka dhigan tahay in dalka Shiinuhu xanuunka ka soo raysanayo. 11 milyan ayaa magaalada Wuhan degan. gobolka Hubei ayay magaalo madax u tahay ilaa iyo 23 bishii January qafil ayaa ku go'naa magaaladaasi oo wax gali kara iyo wax ka soo bixi kara ma lahayn. haatan dadka ayaa loo ogolaaday inay ku baxaan diyaarado inay ku baxaan maraakiib inay ku baxaan tareenno. waaxda tareenka ayaa sheegtay in hal maanta oo kaliya oo 4,550,000 oo qof ay isdiiwaan galiyeen kuwaas oo doonaya inay baxaan laakiin dadka bixi kara waa dadka uun ladan ee xanuunka aan haynin ama uusan soo ridan ama se ka ladnaaday xanuunka. waxaa la sheegay si buuxda uga soo ladnaaday ama muddo badan ka hor uu ku dhacay oo ka soo ladnaaday. waaxda waxa ay sheegtay in laakiinse wali dadka inay galaan magaalada ay mamnuuc tahay. TV-ga CCTV ee dalka Shiinaha waxa uu sheegay in sida muuqata arintu ay tahay mid laga taxadirayo laakiin warbaahin madax banaan oo si toos ah uga soo waramaysa in kastaysan magaalada jirin haddana dadka waxay sheegayaan in qulqulka dadka ay u muuqdaan kuwa doonaya qofba inuu meeshii uu dan ka lahaa uu gaadho. madaxa guud ee ka hortagga xanuunka markaasi dad marka noqday ee magaaladaasi u qaabilsan Lu Pin waxa uu yiri maanta waxa aanu si buuxda u bilownay inaanu dadka u ogolaano inay dhaqdhaqaaqaan in ay dadku isbooqdaan in ay sidoo kale dadku ay isdhex galaan laakiin waxaan wali ka rajeynaynaa inay taxadarku u noqdo mid heer sare ah ayuu yiri oo wali uusan xanuunkii gaagoon beelin ama aan jiridaha loo siibin ayuu yiri. dalka Shiinaha ayaa wali waxa uu wajahaya cadaadis iyo cadaawad dunida uga imaanaysa taasoo sheegayaan inaysan xanuunka dunida uga degin ama ugu yaraan inaysan ka qayladhaan keenin oo aysan ka soo qayladhaamin xanuunka oo runtii u muuqday ay yiraahdeen mid ay adduunka u qariyeen taasoo kasabtay in uu adduunka gees ka gees oo ku fido ilaa iyo bariga fog oo ay ku yaalaan iyo ilaa iyo waqooyiga fog oo Canada iyo Mareykan joogaan iyo sidoo kale galbeedka Australia iyo waliba bariga Afrika oo Soomaaliya. halka nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh warar xogo iyo wacala kala duwan ayaa alaaba aad idin haynaa daawadayaasha qiimaha leh oo maqashaan ee haatanna daawadayaal qodobka ugu dambeeya qaybtan aan ugu dambaysiinayo iyadoo dhawaanahan Furfur Media aad ka maqlayseen inay jireen dad Soomaaliyeed oo soo cabanayay oo ku saabsanaa in laga yaabo mararka qaarkood in laga soo celiyo dhakhaatiirta ama goobaha caafimaadka iyagoo xanuunkii uu hayo ayaa markii ugu horeysay ururka u dhaqdhaqaaqa dadka madowga ah ee muslimiinta ah waxay ku dhawaaqeen inay soo badanayaan dadka lagu kala soocaya xanuunka ama aan laga taxadaraynin ama wax loo qabanaynin. Dr. Camila Rashad oo ah markaasi wax ka samaysada ama wax ka abaabulshada ururka la yiraahdo The Muslim Wellness Foundation ayaa waxa u sheegtay wakaaladda Middle East Eye in ay jiraan in xarumaha caafimaadku ay kala sifeenayaan oo kala soocayaan ayagoo ku markaasi saleynaya arrimaha dhinaca midabka dadka muslimiinta ah ee madowga ah kuwaasoo xanuunku u haysto. waxay sheegtay in ay diiwaan galiyeen dad badan oo arrimahaasi ka cabanaya isla markaana ay muuqato in dadka muslimiinta ee madowga ah xanuunku ku sii faafayo ayadoo sheegtay inay taas ay ka muuqato kadib markii goobaha caafimaadka qaarkood laga soo weeciyay. The Muslim Wellness Foundation ama MWF waxay tiri waxa aanu doonaynaa in aanu si xooggan oo la falgalno ururka kale ee u dhaqdhaqaaqa muslimiinta ee ka soo horjeeda ama ka dhanka ah ayay tiri midab kala sooc ee leeyahay Muslim Anti-Racism Collaborative oo loo yaqaano Muslim Act oo ay tiri waxay qaadeen weerar celis xooggan oo ku saabsan in dadka muslimiinta xaaladooda si dhow loola socdo. waxay tiri Dr. Camila haddii dadka ay u muuqdaan kuwo la dureeyay ama se laga diiday in wax loo qabto
waxaan isku day doonaa ayay tiri in anagu wax u qabano dadkanada ayadoo bulshada dadka muslimiintaana ugu baaqday inay si xoogan uga taxadiraan nafahooda iyo qoysaskooda waxay tiri waa inay dadku u diyaar garoobaan qof walba inuu isagu naftiisa u ka taxadiro nadaafadiisa uu ilaashado isla markaana uu raaco talooyinka dhinaca caafimaadka ee suuban iyo in uu la socodsiiyo laamaha ay khusayso haddii loo diido dawada ayay tiri qaybta dambe wararka waxaa la dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal